السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الكسر هذا FBL الصومالي وحين سوق جوجوي أسبوع عيارات كلواتني سنوات وحين جلينا أسبوع عيارات كلواتني لحد طبعا كان وسيدنا هراء وصوا هالليبو ودبل جيم 26 وأنا كوحب بدن أيا وحلي من لو كلن سيدا درت هذا حضو بهانتها إن أودير جروبت أو عاد كتشتت إن أي بيع كران سيدا كلنا استعمال كرتو جبار هذا وايل كركا بنج بوستيا فري تدي هيستد أو أذن هروب سو استعمال فرصة هيستا أو تدوات كان كوحب بدن أيا وحليهن من لو كلن كوحاس waxa ugu muhiimsan oo aan ka xusi karnaa kooxaha Manchester United, Leicester City, Liverpool iyo Chelsea kooxahaas ka mid ah balse intaanan u guda galin oo aan double game 26 aan ka hadlin bal aan fiirino ciyaaryahanadii toddobaadkii la soo dhaafay dhibcaha ugu badnaa keenay toddobaadkii la soo dhaafay oo game 25 waxa dhibcaha ugu badnaa keenay ninka lagu magacaabo Steve Dallas oo ciyaara kooxda Leeds United waxay ka mid ahayd laba kooxood oo ayagana isbuucii la soo dhaafay lahaa min laba kulan oo Southampton iyo Leeds ayaa min laba kulan lahaa waana ka sheekeynay laakiin sidii la filayay maysan noqonin oo kooxda Leeds United ayaa noqotay mid dhibcaha ugu badnaa laga helay oo Dallas iyo Bamford iyo Rafinha ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda dhibcaha ugu badan ka keenay kooxda Leeds ayaa 3-0 kaga badisay kooxda Southampton oo meeshaasna dhibcaha ugu badan ka heshay haddii aan si guud u fiirino goolayaha kooxda Everton ayaa ah goolahayihii dhibcaha ugu badan keenay waxa uu keenay 11 dhibcood Steve Dallas oo ah ciyaaryahanka ugu dhibcaha badan ayaa dhanka daafaca ah ayaa keenay 17 dhibcood Trajowski oo u ciyaara kooxda Burnley ayaa keenay 9 dhibcood Burnley ayaa waxay shabaqeeda ka ilaashtay kooxda West Brom Fernandinho ayaa isna wuxuu keenay 9 dhibcood Fernandinho ayaa ka qayb qaatay kooxda Arsenal markii ay ka badiyeen oo hal iyo eber uga badiyeen kooxda Manchester City shabaqiisana uu ilaashay ciyaar wanaagna soo bandhigay marka sidaas ayuu 9 dhibcood ku keenay waxa ku xigo ciyaaryahanka Streak oo u ciyaara kooxda Leeds adin sheegay laba kulan lahayd kulan kamid ah waa laga badiyay oo Wolves hal iyo eber uga badisay laakiin kulankii labaad ay 3-0 ku badiyeen qadka dhexe marka la fiiriyo ciyaaryahanka ugu dhibcaha badnaa toddobaadkan wuxuu ahaa Harvey Barnes oo ciyaara kooxda Leicester waxa uu keenay 13 dhibcood Leicester waxay 2-1 kaga badisay kooxda waayadan dambe si fiican u ciyaaraysay Aston Villa asagoo gool dhaliyay sidoo kalena hal kale caawi ka noqday sidaasna 13 dhibcood ku helay Rafinha oo kooxda Leeds ka tirsan ayaa 12 dhibcood keenay Rafinha oo asna goolna ka dhaliyay kulankii kalena laba dhibcood oo bonus ah helay bonusku waxa dheeraadka ah isagoo waxna aan dhalin laakiin waxa uu muujiyay ciyaar aad u wanaagsan oo sidaas ay laba dhibcood ku helay ciyaaryahanada u ciyaara kooxda Manchester United waa Fernandes iyo Rashford ayaa iyagana waxay kala keeneen min 12 dhibcood qadka dhexe ay ka mid yihiin ciyaaryahanada si fiican dhibcaha keenay kooxda Manchester United oo 3-1 ku badisay ayay min hal gool dhaliyeen sidoo kalena min caawin ay sameeyeen Adama Lookman oo ciyaara kooxda Fulham ayaa isna kamid ah ciyaaryahanada dhibcaha ugu badnaa toddobaadkii hore la soo dhaafay keenay qadka dhexe ka ciyaaray Lookman waxa uu keenay 11 dhibcood marka weerarka la dhaho ciyaaryahan Benteke oo kaliya ayaa 8 dhibcood keenay waxa kaloo dhibco keenay asna ninka lagu magacaabo Bamford laakiin Benteke oo ciyaaryahan u ciyaara kooxda Crystal Palace ah oo gool gadaal ka imaaday oo ay Crystal Palace uga badisay kooxda Brighton dhaliyay ayaa sidaas kaalinta hore kaga soo galay oo sidaas ayna uga mid noqday ciyaaryahanadii toddobaadkii la soo dhaafay dhibcaha ugu badnaa keenay markii la isku dardaro waxay keeneen 122 dhibcood ayay keeneen waa marka loo barbar dhigo kulamadii hore waxaad moodaa inay ka yar yihiin oo toddobaadkii la soo dhaafay haddii aan fiirino toddobaadka aan hadda horteena ah double game 26 kulamada la ciyaari doono waa kooxda Manchester City iyo West Ham West Brom iyo Brighton Leeds iyo Aston Villa Newcastle iyo Wolves Crystal Palace iyo Fulham Leicester iyo Arsenal Chelsea oo wajihi doonta Manchester United Sheffield United oo martigelin doonta Liverpool Everton iyo Southampton ayaa is arki doona kulamada qaybta labaadna waxaa ciyaari doona kooxda Man City oo wajihi doonta Wolves Burnley oo Leicester wajihi doonta
Sheffield United oo martigelinaysa Aston Villa, Crystal Palace oo iyadana martigelinaysa kooxda Manchester United, Fulham oo wajihi doonta kooxda Tottenham, West Brom oo martigelinaysa Everton, iyo Liverpool iyo Chelsea oo maalinta Khamiista ah kulanka ugu dambeeya ciyaareedkan wajihi doonta kooxda Chelsea oo waayo fiican ku jirta xil ciyaareedkan aan raahday intii uu yimaadeen ninka lagu magacaabo Thomas Tuchel. haddii aan fiirino kooxaha kulamada muhiimka ah leh laga yaabo inay dhibco badan soo xareeyaan waa kooxda Leicester City. kooxda Leicester ayaa wajihi doonta Burnley iyo Arsenal. haddii aan fiirino ciyaaryahanada meeshaas laga yaabo in dhibco ka keenaan kooxda Leicester waa Harvey Barnes iyo Jamie Vardy, iyo sidoo kale James Maddison oo laakiin dhaawac uu soo gaaray lama xaqiijin weli inuu toddobaadkan ciyaari doono, laakiin wuxuu ka mid ahaa ciyaaryahanada dhibcaha la yaab kale soo xareeyay toddobaadadii la soo dhaafay. Leicester City ayaa kaalinta koowaad hiigsanaysa oo Manchester City ay kaalin ku haysaa. hadda kaalinta labaad ay kula jirtaa kooxda Manchester United. kulanka Leicester City ay la ciyaari doonto Arsenal waxaa xasuusanaa kulankii hore in laga badiyay kooxda Arsenal oo Jamie Vardy uu ka dhaliyay. waxaana laga yaabaa in mar kale haddana guuldarre ay dhabarka u saaraan Arsenal oo sidaas ay dhibco ugu keenaan. Burnley ay sidoo kale ku dhici doonaan oo ay taariikh fiican ku leeyihiin oo inay ka badiyaan ay suurtagal tahay. sidaasna waxaa Leicester City iyo ciyaaryahannadeeda waa lagu xisaabtami karaa ciyaareedka 26aad oo min 2 kulan la ciyaari doono. kooxda Tottenham ayaa wajihi doonta 2 kulan oo waxaa ka mid ah Fulham iyo Burnley. kooxda Tottenham waxaan ognahay in qaab ciyaareedkeedu uusan wanaagsaneyn oo sida la sheegay wararkii hadda toddobaadkan ugu waaweyn ay ka mid ahaayeen in laga yaabo in tababare Mourinho la ciyaariyo. laakiin markaan fiiriyo toddobaadkan kooxaha ay wajihi doonaan Fulham iyo Burnley waxaa laga yaabaa in ay meeshaas bandhig cajiiba keenaan oo ay isku badbaadiyaan. waxayna ugu cadcad yihiin ciyaaryahanada kooxda Liverpool Tottenham in ay isbuuc ciyaareedkan ay ka faa'iideysan doonaan oo meeshaas waxaa laga yaabaa inaad ka keento dhibco. kooxda Manchester City ayaa iyadana wajihi doonta West Ham iyo kooxda Wolves. Manchester City waan ognahay 14 kulan oo xiriir ah ay shabaqeeda ilaashatay sidoo kale laga badinin. taasna waxay muujinaysaa awoodeeda, waxaana meeshaas kugu jira aan isleeyahay dhibco badan oo aad ciyaaryahanada Fulham u ciyaara Manchester City haddii ay haysato. toddobaadadii la soo dhaafay Gundogan ayaa ahaa ninka ugu dhibcaha qaab ciyaareedkiisu wanaagsanaa. Sterling, Foden iyo daafacyada dhanka Diaz, Cancelo iyo Stones dhinacaas oo ayagana is haysta, iyo weerarka oo markii loo fiiriyo qadka dhexe oo ayagana ay aad uga dhisan yihiin ilaa Gabriel Jesus. marka meeshaasna kooxda Manchester City weli ciyaaryahannadeeda waa farqi dhibco ku samayn kara, gaar ahaan Kevin De Bruyne oo weli aanan dhaawac ka soo laabtay, laakiin markaa fiirista ciyaaryahan dadka haysta oo tababarayaasha ama maamulayaasha haysta way yar yihiin. marka waxaa laga yaabaa in meeshaas uu ka noqdo xidiga toddobaadka. kooxda Everton ayaa sidoo kale waxay leedahay 2 kulan, waa Southampton iyo West Brom. kooxda Everton waxaan ognahay in toddobaadkii la soo dhaafay kooxda Liverpool ay guuldarro weyn dhabarka u saartay oo 2-0 uga badisay oo markii ugu horeysay tan iyo 1999 ay kooxda Everton ay Anfield soo badiso. waa runtii waa isbedel weyn oo keenay tababare Carlo Ancelotti. Everton marka ciyaaryahannadeeda sida Calvert-Lewin, Richarlison iyo James Rodriguez dhinaca daafaca markaan fiirino Yerry Mina iyo Digne, dadkaas ayaa laga yaabaa inay dhibco ka keenaan oo meeshaasna ay dhibco badan uga soo xaroodaan. kooxda Manchester United ayaa iyadana ka mid ah kooxaha leh 2 kulan, waxayna wajahaysaa Chelsea iyo Crystal Palace. kooxda Chelsea iyo Manchester United kulankaas waa kulan muhiim ah oo tijaabo adag u ah Thomas Tuchel iyo xilli waayihiisa tababarnimo ee Premier League, maadaama uusan ilaa hadda tijaabo adag uusan marin. toddobaadkan uu Manchester United ka hor imaan doono. marka waxaa is leeyahay kulan wuxuu noqon doonaa gool iska dhaliyo. markii dhinaca daafaca aan fiirino Chelsea ilaa hadda 1 gool baa laga dhaliyay. marka waa tijaabo adag. ciyaaryahanada Manchester United ee weerarkooda uu hadda halista yahay oo waayadan dambana si fiican u ciyaarayay, ayagana waxay mari doonaan tijaabo kale oo ayagana adag. marka kulankaasna kulan muhiim waaye. Manchester United soo kale xoojiyaysaa Crystal Palace iyo oo ayadana toddobaadkii la soo dhaafay soo badisay oo niyad wanaagsan haysata.
iyadana waxay noqon kartaa kulan oo iishag kulan aad iyo aad u trick ah. marka haddii dhinaca kalena kooxda Liverpool waxay wajahaysaa laba koox ay wajahaysaa oo ay toddobaadkan la ciyaari doontaa. kulanka ugu horeeya waa Sheffield United oo horyaalka ugu hooseysa iyo kooxda Chelsea oo iyadana toddobaadkan tijaabo weyn u taala. marka kulanka Sheffield ayaa ah kulanka la isleeyahay waxaa laga yaabaa inay dhibco ka keento kooxda Liverpool, kan kalena waxaa laga yaabaa inay barbara amaba ayba ka badiso maadaama waayadii dambe ay Liverpool ka wadbanayd kooxda Chelsea. marka kooxahaas ayaa toddobaadkan ugu muhiimsan kuwa ciyaari doona double game-ga. haddii aad tahay maamule ama tababare toddobaadkan waxaad ku xisaabtamaysaa inaad isticmaashid jibaaradaada sida wildcard-ka, bench boost-ga, free hit-ka iyo triple captain-kaba. marka meelaha ugu muhiimsan ee la isleeyahay waa la isticmaali doonaa waa bench boost-ga haddii aadan u isticmaalin oo isbuuc ciyaareedkii 19aad oo iyadana sidoo kale u ahaa mid ay kooxo badan ay laba kulan lahaayeen. sidee marka aad rajeynaysaa inaad isticmaashid meelahee ayaa is leedahay in aad kaga faa'iidaysid. haddii aad rabtid inaad isticmaashid triple captain-ka, waxaa ugu muhiimsan toddobaadkan oo kabtannimada laga yaabaa inay aad u dhibco badan ka keenaan isbuucan waa markaan fiirino dhinaca Tottenham. Harry Kane oo kooxda Tottenham hogaaminaya qiimihiisu uu yahay 11.1 ayaa toddobaadkan laga yaabaa inuu dhibco badan ka keeno. waxa uu wajahayaa laba koox oo uu 14 gool iyo 3 caawin ka sameeyay 8 kulan ee ugu dambeysay uu ka hor imaaday 14 kulan ee ugu dambeysay uu ka hor imaaday. sidaasna waxa uu haystaa fursad wanaagsan haddii aad tahay tababare ku xisaabtamaya inuu triple captain-kiisa toddobaadkan uu isticmaalo. Harry Kane waa mid ka mid ah dadka ugu cadcad ee laga yaabo inuu dhibco badan keeno. ninka kale ee laga yaabo inuu dhibco keeno waa oo toddobaadkan kabtanimada ugu cadcad waa Calvert-Lewin. Calvert-Lewin qiimihiisu waa 7.7. waxa uu wajahayaa kooxda Southampton oo 24 gool laga dhaliyay 8 kulan ee hadda ugu dambeysay. marka daafacyada Southampton oo kalsooni darro ay haysato ayaa waxaa laga yaabaa in uu fursad badan oo dhibco inuu ka keeno. Kevin De Bruyne ayaa isna ka mid ah waxaan hore uga soo hadlay waa farqi kabtan oo toddobaadkan qaab ciyaareed wanaagsan inuu muujin karo. waxaan ognahay tababare Guardiola inuu mar walba ciyaaryahanadu isku bedelo, taasna ay caqabad tahay oo marka aad leedahay Foden oo kale, Bernardo Silva oo kale, Sterling oo kale, marka aad leedahay waa lagu keeni doonaa. laakiin marka taas aad uga fikir oo ciyaaryahan Kevin De Bruyne kulankeeda ugu dambeeyay uu kusoo bilowday. marka waxaa laga yaabaa inuu noqdo farqi cajiib ah oo dhibco badan uu keeno. sidoo kalena kabtanka kooxda kabtan ku-xigeenka kooxda waaye. ninka kale ee laga yaabo inuu dhibco keeno waa Mohamed Salah. Mohamed Salah wuxuu ka hor imaanayaa kooxaha Sheffield iyo Chelsea. Sheffield waa koox waayeen dambe hadda kaalinta hoosena iskaga jirta. dhibco badanna mar walba ay lagaga xisaabtami jiray mar walba in gool laga dhaliyo. ciyaaryahan Mohamed Salah sidoo kale kooxda Chelsea gool ayuu ka dhaliyaa, taasna waa fursad fiican. si guud waa Salah waa ninka uu hogaaminaya gool dhalinta. fursadaha rigoorayaasha haddii uu helana waa nin loo dhiibi karo. sidaas ayuuna ugu cadcad yahay. haddii aad mar ku xisaabtamaysid toddobaadkan inaad isticmaashid triple captain-ka oo kale waa u dhiiban kartaa. ciyaaryahanka kale waa Son Heung-min oo ciyaar kooxda Tottenham. waxaa la nasiyay kulankii hadda ugu dambeeyay ee Europa League. marka kooxaha Burnley iyo Fulhamna uu u dhici doonaa. kabtan macquul ah oo waxa uu noqon karaa dhibco badan laga keeno. saaxiibkiis Harry Kane uu soo laabtay. tababare Jose Mourinho waxaa moodaa in culays uu saaran yahay, marka waa lagama maarmaan marka kulankaas inuu ciyaarsiiyo. shaqo badan ay sugaysaa oo su'aalo badan ayaa la weydiiyey tababare Jose Mourinho. waxaa weydiiyey ninka chairman-ku Daniel Levy. marka ninkaasna wuxuu noqon karaa nin toddobaadkan dhibco badan keeni kara loona xisaabtami karo. haddii aad ka fikiraysid inaad kabtan aad saaratid waa kabtan macquula. ninka kale ee waayadan dambe aadka loogu xisaabtamayay waa Bruno Fernandes. Bruno Fernandes toddobaadkan waxa uu wajahayaa kooxda Chelsea iyo kooxda kale ee Crystal Palace. Bruno Fernandes waa kabtan aad la isku haleyn karo maadaama uu soo xareeyay 10 jeer in uu tiro laba u keeno ama dhibcaha double hole-ka loo yaqaano. dhibcahaas oo mar walbaba tiro 10 ka badan uu keenayay muddo 10 jeer ah xilli ciyaareedkan intii uu socday. waa runtii waa qaab ciyaareed aad u wanaagsan, waana nin aad loogu xisaabtami karo isleeyahay.
marka kabtanimadaada toddobaadkan waa nin aad ku aamini karto. dhinaca bench boostiga oo kale haddii aad haysato inta badan hadda waxaad moodaa in haddii aad koox nin tababare kooxdiisa aad ula socday oo isbedel ku samayn jira haddii aad tahay waxaa laga yaabaa in shaxdaadaba hadda ay ka mid yihiin ciyaaryahanno ciyaari doona toddobaadkan min 2 kulan. marka waxaaba fiicanba marka inaad ku degdegin waxyaabaha qaar sida hadda inaad waalkada isticmaasho kala hada haysato hore haddaan u isticmaalin oo hadda ciyaaryahanada inta badan ay ku joogaan oo hal transfer ama 2 transfer oo kale oo dhibic 4 aad geli kartid inaad waalkada isticmaasho ayadana taas micno badan ma lahan oo kulamo badan ayaa xarsan wali horyaalka kala baraha ayuu sii marayaa. marka waxaa isticmaali kartaa laakiin bench boost ayaa toddobaadkan aad loo dhiirigelinayaa inuu tababaraha u isticmaalo. sidoo kale triple captain-ka waa mid kale oo la isticmaali karo. waxaa xasuud mudan ayadana inaysan labadaba aad wada isticmaali karin mid kasta aad hal mar isticmaali kartid. marka ku xisaabtan toddobaadkan tee isleedahay haddii ay shaxdaada ku badan yihiin ciyaaryahanada 2 kulan ciyaari doona oo aad u baahan tahay kaliya inaad 2 bedel ama 3 bedel aad ka samaysid ciyaaryahanada toddobaadkan ugu cadcad ee hadda aan soo xusnay sida Calvert-Lewin, Kevin De Bruyne midkood haddii aad ku soo darsatid waa kugu filan tahay kadibna aad bench boost ciyaartid ama triple captain ciyaartid. intaas ayaan kusoo koobaya toddobaadkan waxaan idin rajeynayaa guul haddii aad weli kusoo biirin FBL Somali